xildhibaanada sareeda maxamed cabdalla oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galaya kulanka baarlamaanka Afrika oo ka dhacaya magaalada Johannesburg xildhibaanad waxaad bal sharaxaad inaga siisaa kulankii maanta furmay iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray kulankii maanta furmay shirka aan caadiga ahayn maanta waxaa diiradda lagu saaray budgetka African Union ayada oo aad loo dhaliilay waxyaalihii loo baahnaa oo san budgetka ku bixin iyada oo la og yahay sanooyinka dambaba African Union budgetkeeda oo sii liitay kana waa zero aan dhihi karaa hadii aan u fiiriyo marka waxyaalahaas diiradda lagu saaray mana ku bixin wixii baxayna meelihii loo baahnaa taasna waxay u taallaa madaxweynayaasha Afrika hadii Ilaahay yiraaho inay meel saaraan waa tahay ninka Soomaali ahaan xildhibaanada Soomaaliya aad ka mid ahaydeen matalay dawladda Soomaaliya dooda qayb baad ku lahaydeen dabcan waxyaabaha aad hor dhigteen ama aad dooda ka geysateen maxaa ugu waaweyn والله أنا كهاد ما أنت ما بكهادلين لكن وكهادل دونا waa dhaliilaynay baarlamaanka wasla walis ogi hay xildhibaanada la soo hormariyay kuwii budgetka xisaabsanay u badnaayeen marka waa laga hadli doonaa anaga sideedaba security-ga waxbarashada caafimaad aan aad uga hadalnaa beeraha markay keenan waa ka hadalnaa waa ogtahay dhibaataan haysataba beeraheeni anaga waa eberba oo adduunka oo dhan ay wax walba ka qaadin jireen insha Allah waa soo fiicnaan doona wadamo badan oo hadda war galay oo aan dagaal galin oo ka fiican oo Afrika jira anagoo dagaalkaas galnay businesska adduunka hadda anaga hadii la soo qaado marmarka qaar lambar 2 aan galnaa ama 1 marka insha Allah doorasho soo socoto baarlamaanka May oo galaya baan Afrika markaas la is soo hordhigaya wixii mataqaanaa oo muhiim ah annaga wax noogu daran waa security-ga Afrika security-ga African Union mission waa jooga laakiin waxaan rabnaa in la soo afjaro waxaan dheeraaday ciidankeena la xoojiyo oo ciidamadeena ay noqdaan xariyahoodii caadiga ah ay lahaan jireen in loo hagaajiyo oo annaga ciidamadii Afrika lambar 1 aan ahaan jirnay sidii in mataqaanaa ciidanka uu ku socdo il iyo saxiix iyo hooy iyo magaca mishaar lagu bixiyo ayaan rabnaa hadii Ilaahay yiraaho ciidamadan Afrika oo iska joogan waxaan rabnaa isku dhaf ciidan ah oo wanday soo afjar in looga dhigo ciidankeena maxay ahaday waxana la siinay Afrikana siinayso oo ka bacdan ciidankeena la xoojiyo oo ciidanka Afrika mataqaanaa oo koowaad ahaan jiray almeenaad koowaad doon noqon la soo dhaweeyo oo waxaan badaheena yaacay annaga ciidanka badan leenahay la xoojiyo ciidamadaas oo dhan hadii Ilaahay yiraaho ma yahay ciidanka wiiga ah ma u dul qaadan karno tan sanadkan aan ka hadlayno taas u badan waa tahay sidoo kale waxa garabkayga madax sanad taagan xildhibaan Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed oo kamid ah xildhibaanada sanad walba ka qayb gala kulankan baarlamaanka Afrika xildhibaan sanadkan waxyaabaha ugu qorsheysan oo baarlamaanku ka doodayo waxa ugu waaweyn sida la sheegay budgetka ay qaataan madaxda midowga Afrika sanad walba lagu bixiyo marka laga soo tago kaas sidoo kale waxa jira ayaduna qabanqaabada doorashada arrimahaasi iyo maxaa kale oo baarlamaanka looga hadlay بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها ولا شركاني ماها شر عادي أو شركة وينا عادي ماها شركة وينو عادي أو كل عدونا إن شاء الله بشمي شركان هو شر إن عادي هين extraordinary session إن وحيابها هذا كلفي إن شركان وقبصومنا وحوي باهي وحاجته ميزانية دي محلي راميدو أفريقيا برلمان كلور كانوا إن وحآخر ميزانية ده كحجان كحجيها جودة midowga Afrika runtii meel badan bay taabanaysay dhaliilo aad u fara badan waa lahayd xildhibaanadu waa ka doodeen wixii dhaliilana waa loo jeediyay waxaan rajaynaynaa in wax laga bedeli doono iyadoo lafteeda hadda la keenay maanta in amendment wax lagu sameyn doono wax laga bedeli doono annaga waxaa muhiim noo ah aad looga hadlay oo ku-xigeenka xogayaha guud uu aad uga hadlay lacagaha dibadda ka yimaada Afrika uga yimaado oo diaspora maadaama Soomaaliya lagu yaqaano in dad fara badan oo diaspora oo Yurub iyo Mareykanka ku nool ay leedahay runtii arrintaasi annaga aad bay noo farxad gelisay waxaan ka hadlaynaa hadda insha Allah wali dood waa loo fadhiyaa xawlaadaha Soomaaliya oo ayaan dhaweyd Mareykanka ku joojiyay oo maaragtay mad badan oo Soomaaliyeed iyo Soomaali fara badan bay ku nooshahay ayadana inaan kaga hadlano maadaama
la ammaanay arrinta ayada aadna loo soo dhaweeyo la iskuna raacay inay dhaqaalaha Afrika lacagaha diaspora ama qurbo joogto ka yimaada ay wax weyn u tahay waxaa intaa dheer waxaa looga hadlay cudurka Ebola arrimaha caafimaadka arrimaha haweenka carruurta amniga marka annaga insha Allah midda amniga waana taabanaysaa sida walaashay xildhibaanadu sheegtay waxaan rajaynaynaa inaan ku dadaalno maadaama dalkaani uu Soomaali maarta ayada Soomaaliya leh waxaan aaminsanahay in Soomaaliya barbalenkeeda ayadu xallin kartay ciidamada iyo dhaqaalaha lacagaha ku baxay hadda oo ciidamadan ajnabiga ah faraha badan oo dalka la keenayo lacagaha lagu bixiyo waxaan rajaynaynaa in ciidamo Soomaaliyeed oo la tababaro oo military loo police loo nabad sugid leh inay ku bixiyaan bal saasaan anagu kulli soo jeedin doonaa halka ciidamo badan baa jooga Soomaaliya oo ka socda midowga Afrika oo qarashaad fara badan oo ku baxo sanad walba waxyaaba hadda shirka looga hadlayna waxa ugu mooweynaa arrimaha argagixisada oo kale oo kooxaha shabaabka iyo Boko Haram iyo ISIS oo kale ay wadaan Soomaaliya kale ayadu dhib ay ku hayaan kooxaha shabaabka qorshaha mugu jira in barnaamijkan la soo afjaro ama aad diiradda ku saamaxo ku xoojisaan in la soo afjaro barnaamijkan wallahi aad baa looga hadlay maanta waxyaabihii oo presentationka uu bixiyay xogeenka xogayaha aad buu u taabanaya hadda meelaha ay sheegayso laakiin haddee amni xumadan marka laga hadlo Soomaaliya iyo hadda annaga wadamada dariska nala ah markaad West Africa aado Boko Haram oo shalay ma 2 sano ma qaan ka hor aasaasmay maanta heer Central Africa ay maray jaad bay soo gaareen intay West Africa soo dhaafeen bay jaad maray marka arrinta ayada waxa xasiloon darada iyo amni xumada ka jirta Africa ma aha Soomaaliya oo kaliya maanta meelo badan bay taabanaysaa marka insha Allah hadii Ilaahay idmo annagu mar walba waxaan diiradda saaraynaa hadday gudaha noqoto markaan joogno iyo hadday noqoto markaan baarlamaanka Afrika joognaba in ciidamo Soomaaliyeed oo meel gobol walba laga soo qoray oo la qarameeyay inay isku dayaan bal Soomaaliya amni xumada ka jirta inay xalliyaan taas aan rabnaa inaan ka dhaadhicino dadka arka jooga kugu soo laaban doona dabcan xildhibaan sarada sanad walba ugu yaraan 5 xildhibaan ka qayb gashay kulankan Soomaalida inta badan waxa lagu yaqaan dad firfircoon inay yihiin doorasho dhacaysa sida la sheegay bisha May qorshaha mid ku jira xildhibaanada Soomaaliya in qof Soomaaliya oo xildhibaan u tartamo xilkaas insha Allah sanadkan annaga waxaan rabnaa inaan wax ka helno sidaan jeclahay waa loo tartamaya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka inaan u tartamaan rabnaa oo Afrika ilaahay madaxdeena baan Afrika ha tuso Afrika inaan nahay Allah ha tuso xildhibaanada in mataqaana ay باور ويران الله قردسيو إن شاء الله one day هالكان أودا حلبان سوماليا كدها إن شاء الله إن شاء الله وتعلم إن حقنا أولاد يدا وقت الدورة شدان يدا وهذا داعي دونتا إن وحوي إن وحنلنا عط محايلة شن حلبان وصومالي بان إن قبل والبا أو أفريقيا كيالنا أفريقيا وعشان قبله حبين بحق ولاده يقدون كبرلمان كنا إن وحنو مالينا إن سد حي طبعا ودنا هاي سد حي طبعا كنا ودن بحبين هليس أو قبل كان أفريقيا دبري سد حي طبعا كنا ودن وحنيلي دونا حبين كم إذا يقدون كبرلمان أيضا أمريكا هدي أنا نوينه وحنسكت ضينا حبين أن نقول تركوا يالناي oo maxaa la yiraahdaa bari aan talada wax naga siinaysa inaan in horta mahadsan in xeer halkan yaalayo baarlamaanku inuu ka dooda ahayd in miisaaniyada ururka Afrikada in maanta la furiyay markii ugu horeysa muddada 10 sano oo xildhibaanadu uma yeelin fursad ay ku eegaan ay ku ka hadlaan miisaaniyada maxay in Afrikada ururka Afrikada kolka waa markii labaad sanadkii hore waxaan aragnay iyadoo kooban maanta iyadoo tafatiran oo waliba iyadoo madaxweynayaashu arag in ministrada arrimaha dibadda Afrikada ay arag safiirada Addis Ababa joogay arag iyo Afrikada maanta aan anagu aragnay anagu barlamaanteer kolka waa fursad aad u weyn fursadaas waxay sheegaysaa in Britoliye in xildhibaanada u yeeshaan awood ay ku su'aali karaan maxay in komisyoonka Addis Ababa fadhida in budget in miisaaniyada in Afrikada ay tiraaho halka maxaa laga qabtay in intaas oo lacag halkee martay
taa waa marka damaan dowladda islaamka waxa weeyaan iyadoo qabya yaan noo keenay oo la leeyahay wixii aad ku dari kartiin in bal eega marka waxaan aragnaa wax aad u wanaagsan